Assalaamu calaykum waa mubaarig maxamuud saleebaan waxaanu halkii ka sii ambaqaadaynaa taariikhdii inoo socotay ee dowladdii Salaajiqada waana qaybtii saddexaad waxaanu ka soo hadalnay qaybtii hore Suldaan Arab Arsalan haddaba Suldaan Arab Arsalan markii uu dhintay waxaa xilkii ka dhaxlay wiilkiisii Suldaan Maalik Shaah haddaba Maalik Shaah markii uu talada la wareegay waxaa kacdoon ku sameeyay adeerkii dagaal xun baana dhex maray kaasoo lagu jebiyay adeerkii haddaba Maalik Shaah wuxuu ka mid ahaa suldaanadii u fiicnaa xagga dhaqanka cadaaladda iyo xagga kartidaba waagiisii dowladda islaamku waxay gaadhay meesha ugu ballaadhan oo waxay isku fidisay laga soo bilaabo bariga fog oo ah meeshii diinta islaamku gaadhay waagii Umaawiyiinta ilaa Qudus oo dhinaca galbeed ah dhulka islaamka ee Aasiya oo dhanna gacanta ayuu ku dhigay marka laga reebo jasiiradda Carabta iyo dalalka koonfur bari Aasiya ee jasiiradaha ku yaala haddaba waqtigiisii meel walba ammaan iyo nabad baa ka dhacday oo dadkii way ka nasteen burcadii iyo tuugadii argagixisada ahayd ee dhibka ku haysay haddaba waxaanu sii gudbaynaa kala daadashadii dowladdii Salaajiqada haddaba dowladdii Salaajiqada ee aan soo aragnay oo asal ahaan meeshii ay ka timid iyo sidii ay u abuurantay iyo halgankii ay u soo gashay jiritaankeeda iyo inay awood yeelato markii ay taladii kala wareegtay dowladdii Shiicadii reer Faris ee dowladda dhexe afduubka ku haysatay muddo qarni ka badan Salaajiqadu iyagu sidii aan soo aragnay khaliifadii Cabbaasiyiinta awooddii ayay wax ka siiyeen oo waxay ka dhigeen boqor dastuuri ah oo awoodda iyo dhaqaalaha iyo magacaba wax ku leh iyaguna waxay lahaayeen suldaanka oo ahaa ninka hawsha fulinta iska leh sidoo kale waxay soo nooleeyeen oo difaaceen diinta islaamka gaar ahaan madhabka sunniga oo isagu u taagnaa diinta islaamka ee toosan saddexdii suldaan ee u horreeyay oo kala ahaa Tukrol Beg iyo Arab Arsalan iyo Maalik Shaah ayaa dowladda awooddeeda fidiyay oo dhul ballaadhan hoos keenay markii uu suldaanka saddexaad ee Maalik Shaah oo isagu dowladda meeshii ugu fogeyd gaadhsiiyey uu geeriyooday sannadkii 485 ee hijrada ayaa waxaa bilowday dowladdii inay kala qaybsanto oo amiiradii Salaajiqadu ay talada isku qabsadaan oo ay ku mashquulaan loolan gudahooda ah kaas oo horseeday in dalalkii kala qaybsadaan oo nin walba intii awooddiisu gaadho uu ka taliyo taladii dowladda dhexe ee Baghdad bayna muddo loolan u galeen oo labadii wiil ee Maalik Shaah oo la kala odhan jiray Barkiyaariq oo curadka ahaa iyo Maxamed oo ka yaraa iyagoo laba bahood kala ahaa ayaa muddo hadba mid la wareegayay haddaba 2 sano kadib sannadkii 487 waxaa u adkaaday taladii Baghdad oo dowladda dhexe xarun u ahayd wiilkii weynaa ee lagu magacaabi jiray Barkiyaaq oo khaliifadii Cabbaasiyiintuna u ansixiyey inuu noqdo suldaanka ka talinaya dhulka dowladda dhexe awooddeedu gaadho haddaba dowladdii Salaajiqadana waxaa ka dhashay dowlado kala ahaa Salaajiqadii Ciraaq tii Shaam iyo tii Aasiyada yar iyo tii Karmaan iyo tii Khuraasaan oo ilaa bariga muslimiinta ka talinaysay dowladdoodiina waxay iyadoo kala qaybsan sii jiitamaysay muddo qarni kale ah iyadoo mar walba qayb ka mid ihi awoodda sare lahayd Aasiyada yar ama dhulka Anadol oo ka mid ahaa dhulka Turkigu maanta ka taliyo waxaa ka dhashay dowlad ka mid ah Salaajiqada oo uu aasaasay Qadlaash binu Israa'iil binu Arsalan kaas oo ka madax bannaanaaday dowladdii dhexe ee Ciraaq waxaa Shaam maamul madax bannaan ka aasaasay Tatash binu Arab Arsalan ninkiisna lagu magacaabi jiray Makituddin Muxamedna wuxuu u hadhay taladii Ciraaq sannadkii 511 haddaba dowladdii Salaajiqada qaybta ugu weyn waxaa u hadhay oo gacanta ku hayay Suldaan Sanjar oo ka talinayay gobolka Khuraasaan ilaa bariga fog ee muslimiinta isagoo markii dambe ku guulaystay inuu soo celiyo
midnimadii iyo awooddii dowladdii Salaajaqada oo dhammaan dhulkii ay gaadhay gacanta ku soo dhigay intii u dhaxaysay 511 ilaa 552. laakiin markii uu isagu dhintay bay dowladdii mar kale kala qaybsantay oo sideedii ku soo noqotay. intaa ka bacdina dowladdii awooddeedii hoos ayay u dhacday oo dowladdii dhexena mar walba waxay marti u ahayd suldaan ka mid ah salaadiintii Salaajaqada oo khaliifadu hadba ninkii deegaanka Ciraaq u adkaada ayuu awoodda u ansixinayay. haddaba aan dib u yaro laabanno oo xasuus ka soo qaadanno nidaamulmaalig iyo raadkii uu reebay iyo midhihii ka dhashay. haddaba khaliifada waxaa sii caawiyey waayihii dambe oo dhan waxaa soo baxay shacab aqoon iyo wacyi leh oo diinta islaamka yaqaan, taas oo ka dambaysay markii la abuuray xarumo dowladdu maalgeliso oo diinta iyo aqoonta oo dhan laga barto, oo ay gacanta ku hayaan culimo iyo macallimiin aqoon sare leh. talada lagu abuurayna xarumahaas ama dugsiyadaas waxaa lahaa nin taariikhda baal dahab ah ka galay oo lagu naanaysi jiray nidaamulmaalik, laakiin magiciisu ahaa xasan binu cali binu isxaaq binu cabbaas, isagoo wasiir ama ku-xigeen u soo noqday boqorkii labaad ee Salaajaqada Alab Arsalan. haddaba xilligii Salaajaqadu la wareegeen dowladda dhexe iyo dhulweynaha islaamku gaadhay badankiisa, siiba qaybaha bari, waxaa la soo sheegay inay dhulkaas badankiisa ay ku baaheen shiico habowsan oo baatiniyiin la yidhaahdo, kuwaas oo isu muujinayay inay muslimiin yihiin laakiin afkaaro khaldan watay, kuwaas oo diinta islaamka iyo dadkeedaba dagaal xun ku hayay. haddaba suldaan Alab Arsalan dadkaas diinta qalluucinaya oo xambaarsanaa afkaarihii ay abuureen cadowgii diinta, siiba majuusiyiintii laga adkaaday oo doonayay inay mar labaad soo ceshadaan dowladdoodii awoodda badnayd. haddaba dagaal xoog leh buu ku qaaday oo dad badan buu ku laayay, laakiin wasiirkii nidaamulmaalik wuxuu boqorka u sheegay dagaalka gacantaahi inuusan sii waarayn, oo markii suldaanku dhinto ama dowladda Salaajaqadu ay dhacdo ay mar labaad soo laabanayaan dad fikraddii qaba oo isqarinayay oo awoodda muslimiinta la wareegayaan, iyagoo ka faa'iidaysanaya jahliga ummaddu ku sugan tahay. sidaas daraaddeed wuxuu soo jeediyey in la abuuro xarumo cilmiga diinta iyo maadigaba lagu barto oo dowladdu maalgelinayso, kuwaas oo loo xulinayo macallimiin karti iyo aqoon iyo akhlaaq isku darsatay, kuwaas oo ay ka soo baxayaan arday aqoon leh oo ummadda garaadkeeda iyo aqoonteedaba kor u qaada. haddaba suldaankii wuu ku raacay taladaas wanaagsan oo awood buuxda ayuu u siiyey inuu dhiso xarumo cilmiga lagu barto oo dhaqaale badan loo qoondeeyey. kadibna nidaamulmaalig wuxuu abuuray xarumo ama dugsiyo iyo jaamacado lagu barto aqoon heer sare ah, wuxuuna u xushay macallimiin caan ah oo cilmiga diinta iyo kan maadigaba yaqaan. wuxuuna ahaa ninkii u horeeyey ee abuuray habka adduunku maanta ku socdo oo ah dugsiyo joogto ah oo ilaa heer jaamacadeed gaadhaya oo ardaydu hadba marxalad u gudbayso. haddaba nidaamulmaalik wuxuu ku guulaystay inuu soo saaro ummad aqoon iyo garaad sare leh oo diida afkaarihii habowga ahaa ee ay shiicada habowsani ay abuuraysay. sidoo kale wuxuu soo saaray shacab iyo culimo wacyi leh oo mar walba garab taagnaa khaliifada oo ahaa astaan u taagan midnimada ummadda islaamka iyo diinta islaamkaba. haddaba nidaamulmaalig waxaa la dilay sanadkii 485 ee hijrada, waxaana dilay nin ka mid ah dadkii diinta qalloocan faafinayay oo u adkaysan waayey sida uu mashruucoodii u jebiyey. halkaas ayuuna ku geeriyooday nidaamulmaalig, allaha u naxariistee. haddaba waxaa la sheegay inuu maalig shaah ka dambeeyey ninkaas dilay oo isagu abaabulay shirqoolkaas, oo waxaa la sheegaa inay qaar dadkii habowsanaa ee shiicada ahaa ay u dusiyeen afkaartoodii oo ay saameyn ku yeesheen. sidaas daraaddeed uu wasiirkii halista ku ahaa ay ka codsadeen inuu dhaafiyo, laakiin isaguna dhagartaas ma mahadin oo wuxuu ka dambeeyey
muddo 35 cisho ah. haddaba Maalik Shaah wuxuu sidoo kale ku gardarooday khaliifadii markaas talada hayay, oo markii uu safarkaas ka laabtay ayuu wuxuu amar ku siiyey inuu magaalada Baqdaad isaga u daayo oo uga baxo, taas oo muujinaysa inuu la yimid afkaar ka duwantii Salaajiqadu qabeen. khaliifadiina waqtigaa wuxuu ka codsaday inuu muddo 10 cisho ah siiyo oo uu u kaadiyo. sidaa daraaddeed muddadii oo aan dhammaan ayuu xanuunsaday oo tii alle ayaa u timi. waxaa ku xigtay dowladdii Salaajiqada oo kala daadata, oo suldaankaas khaladka uu galay ayaa naftiisii iyo tii ummadaba saamayn ku yeelatay. haddaba habkii uu Nidaamulmaalik aasaasay weli waa nool yahay, oo waa habka waxbarashada dunida laga dhigto ee joogtada ah, oo ilaa heer jaamacadeed gaadhaya. isaga ayaa aasaaskooda lahaa. halkaas ayaynu maanta ku joojinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.